xaaladihii ugu dambeeyay ee ammaanka Soomaaliya waxaa weli ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dilal qorsheysan iyo qaraxyo kuwa oo dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarayso ay yihiin dad shacab ah oo waxba galabsan. dilalkan iyo qaraxyada amni darrada badan ka dhaliya caasimadda dalka ayaa leh sababo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin sida uu ku soo waramayo wariye ku sugan magaalada Muqdisho, isku haysi xilal, kala duwanaansho fikir iyo sidoo kale heebsooc ama qabyaalad. dhacdadii ugu dambeysay waxaa lagu dilay maalin ka hor mas'uul ka tirsan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya kaas oo gaarigii uu watay qarax loogu xiray xilli uu marayay wadada Maka al-Mukarrama. ilaa iyo hadda lama oga cid ka dambeysay beegsiga lagu dilay mas'uulkan ka tirsan dowladda Soomaaliya marka laga reebo tuhumo la sheegay in laga qabo xarakada al-shabaab oo ku caanbaxday beegsiga iyo dilalka mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya sida hadalka loo dhigay. taas ayaana sababtay in dowladda Mareykanka ay u soo dirto Soomaaliya diyaarado dagaal oo dul hayhaaba kuwaas oo la socda dhaqdhaqaaqyada al-shabaab. bayaan ka soo baxay hogaamiyayaal ciidan oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa dhowaan lagu sheegay in ilaa 9 ka tirsan saraakiisha muhiimka ah ee al-shabaab ay dileen iyadoo aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin dadka shacabka ah xilliga weerarkaasi uu dhacayay. Soomaaliya ayaa xaaladan amni darro iyo dirir joogto ah ku soo jirtay laga soo bilaabo sanadka markuu ahaa 1991 xilliga oo ay meesha ka baxday dowladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre iyadoo dhowr isku day nabadeed oo ay sameeyeen beesha caalamkuna ay ku guuldareysteen arrinkaasi, taas oo marka laga soo tago nabad raadintii dhanka kale ay khilaafaad siyaasadeed ka dhex abuurtay wadamada Carabta iyo kuwa Afrika iyagoo markaasi ku loolamaya awoodda geeska Afrika.